howlgal military oo lagu sheegay dhoolatus kii ugu horreeyay ee noociisa ee ay Israa'iil ku samayso meel ka baxsan xuduudaha ay sheegato tan iyo markii la aasaasay dawladnimadeeda sanadkii 1948 ayaa waxa ay ka samaynaysaa jasiiradda Qubrus daanteeda koonfureed ee dawladda caalamku aqoonsan yahay ay ka dhisan tahay waana howlgalka ay ka qayb qaadanayaan ugu yaraan 50 diyaaradaha dagaalka oo Israa'iil leedahay oo noocyadoodu kala duwan yihiin waxaana kaloo ay Israa'iil halkaa geysay ilaa 100 ka mid ah saraakiisheedii militariga ee ugu khibradda badnaa oo isugu jira abaanduulayaal dagaal iyo taliyayaal rugaha hogaaminta qaabilsan iyadoo ilaa 500 oo askari oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandoosta Israa'iil ay ka qayb qaadanayaan howlgalkan dhoolatuska ah ee ay ciidamada Qubrus la sameynayaan muddada 3 maalmood halka ay sidoo kalena Israa'iil wadato cutubyadeedii dhanka dagaalada elektaroonikada ee ay haysatay iyadoo dhaqaaqan Israa'iil loo fahmay inuu yahay mid ay agabkeeda dhankeeda difaaca ku tijaabinayso xuduudda militari ee Turkiga oo ay maqashay inay Turkigu xoreysteen qayb ballaaran oo ka mid ah barigii Mediterranean-ka oo dalalkii waaweynaa kuwoodii isku soo haameeyayna ay dib ka miirsadeen markay la kulmeen weerarro dhanka elektaroonikada ah oo ciidamada badariga Turkigu ku qaadeen kuwii kalena ay ka warwareegayaan oo u soo geli waayeen saacada ka bacdi marka ay ciidamada Israa'iil gaadheen jasiiradda Qubrus oo daris la ayaa ciidanka Turkigu waxay daanta waqooyi ee isla jasiiradda u direen diyaarado dagaal oo dheeraad ah oo noocoodu yahay F-16ka Turkiga oo ay shirkadda Aselsan ee Turkigu sii horumarisay kuna rakiban yihiin kamaradaha diirimaadka wax ku basaasa ama ku ilaaleeya oo ay wehelinayeen diyaaradaha daroonta ee Bayraktar TB2 kuwaasoo sita gantaalaha Minotaur bomb oo gaadhi kara masaafo 145 kilomitir ahna gantaalaha kala jeexa dhulka ee dalooliya waana xilli heegan la geliyay ciidanka labaad ee ugu hubka wanaagsan qaaradda Afrika oo ah militariga dalka Algeria oo xulafo dhow isagu la leh militariga Turkiga horena waxyeello badan ay uga soo gaadhay ciidamadii gumaystiga Faransiiska oo la cadeeyay inay bartamihii qarnigii 20aad dileen ilaa 1 milyan oo qof oo Algeeriyaana sababta heeganka loo geliyay ciidanka Algeria waa iyadoo ay jirto hadalhayn ku saabsan in Israa'iil ka warwarsan tahay inay diyaaradaha dagaalka ee Sukhoi 57 ay si dhammaystiran casriyeyntooda ugu gacan gasho ciidanka Algeria iyadoo muddooyinkan u dambeeyayna Israa'iil ka dalbanaysay dawladda Ruushka inay joojiso ama ugu yaraan dib u dhigto guddoonsiinta ay Algeria guddoonsiinayaan diyaaradaha Sukhoi 57 oo ay hore macluumaadkooda oo dhan ugu gudbiyeen dabadeedna ay Algeria macluumaadka u sii gudbisay militariga Turkiga sidii aynu barnaamijyadeennii hore ee xogta tahsoon ku faahfaahinay Turkiguna waxa ay u arkaan in militariga Algeria uu yahay militariga kaliya ee ku filan inuu hor istaago isballaarinta Faransiiska ee badda Mediterranean-ka iyo galbeedka qaaradda Afrika waxaana ay haatan ku tala jiraan inay caqiido ahaan ka dhisaan ciidanka tiknoolajiyadana ay islaafsadaan waxaana hore u jirtay in sanadihii 80-yadii ee qarnigiina dhaafay ay dawladda Algeria noqotay kaliya ee martigelisay shirweynihii ay ururka PLO isugu bedelayeen dawladdii Falastiin ee dibadda ka dhisnayd kadib markii dalalka kale ee Carbeed ka baqdeen hanjabaadii Israa'iil ee ahayd inay duqeyn doonto waddan kasta oo shirka Falastiiniyiinta martigeliya xilligaas oo ay militariga Algeria raxan diyaaradaha dagaalka ee MiG-31 iyo MiG-25 ay ku xidheen hawada Algeria taasoo keentay inay Israa'iil weerari kari weydo shirweynihii Falastiiniyiinta haddii aynu dib ugu noqono dhoolatuska Israa'iil ee ciidda Qubrus koonfureed waxa uu markiiba la kulmay falcelin ay kaga jawaabeen militariga Turkiga iyagoo Israa'iiliyiintu markii ay sida kidisada u soo galeen Qubrus adeegsaday saanadooda elektaroonikada dabeetana ku dhawaaqay in 3 maalmood ee dhoolatusku socdo ee 14, 15 iyo 16 bishan Sebtembar ay xidhan tahay hawada jasiiradda Qubrus guud ahaanteed waqooyi iyo koonfurba diyaarad kasta oo ku soo xadgudubtana ay saanadeeda difaaca cirka ku soo ridi doonto laakiin hanjabaadaasi ma sii socon muddo dheer oo ay habeennimadii salaasada soo galisay 15 bisha ayaa militariga Turkigu u kala fureen warmahooda oo laba howlgal oo dhanka elektaroonikada ah ku soo qaadeen hawada jasiiraddaas Qubrus taasoo keentay in militariga Israa'iil xadidi kari waayaan soonaha ay ugu tala galeen inuu dabridku ka dhaco oo diyaaradahoodii dagaalkuna ay akhriyi kari waayeen soonaha ay duulayaan iyo bartilmaameedka ay ku sii jeedaan toona oo ay kala saari waayeen inuu hadafku yahay aag ay fadhiyaan ciidamadii Qubrus koonfureed ama kuwii Qubrus waqooyi
amaba ciidankii Turkiga ee Qubrus deganaa. Sidoo kalena diyaaradaha Israa'iil ee dhoolatuska sameynaya waxaa ku adkaatay inay kala gartaan bartilmaameedyada rayidka ah iyo kuwa ciidamada. sababta weerarada elektaroonikada ciidanka Turkiga ka dhigtay inay ka hortagaan dhoolatuska Israa'iilna waa iyagoo ka qaadaya weerarada gudaha jasiiradda Qubrus, gaar ahaan qaybteeda waqooyi ee ay ciidamadeedu degan yihiin, taasoo ay ku talagaleen in loo arko in cidda weerarada qaadaysa ay tahay Qubrusta waqooyi oo aanay dowladda Turkiga iyo militarigeeda toonna shaqo ku lahayn haddii uu shil dhaco. waana taatika militari oo ay Turkigu bar hogaamineed oo cusub kaga yigleeyeen Qubrusta waqooyi, maadaama ay Israa'iiliyiintu bar hogaamineed ka samaysteen koonfurta jasiiradda. waana tallaabada caddaynaysa inay Israa'iil markeedii ugu horreysay ku fashilmeen dagaaladooda dhanka elektaroonikada ee ay dhoolatuskan u gaar yeeleen, iyagoo dhammaan batalyanada weerarada elektaroonikada ah ciidamada Israa'iil sida Nevati, Misqal iyo labada kooxood ee kale ee waaweyn ee 665 iyo weliba 662 ay dhammaantood ku fashilmeen inay bal wax kale iska daaya calaamadiyaan aagga ay dhoolatuska ugu talagaleen oo u xidhaan sidii ay Turkigu dhowaan u xidheen aagbadeedkii maraakiibtoodu ka waday saaminta shidaalka. sidoo kalena waxay tirtay inay diyaaradaha casriga ee F-15 ee Israa'iil isku halaynaysay ay u gudbi kari waayeen dhanka Qubrusta waqooyi, oo markasta oo ay soo dhawaadaan xuduudda labada Qubrus u dhaxaysa ay diyaaradahaasi waayeen xidhiidhka ay la lahaayeen bartoodii hogaaminta iyo madaaradii ay ka soo kaceen, taasoo ku khasbisay inay dib u laabtaan. waxaana la xaqiijiyay inay militariga Turkigu weeraradooda dhanka elektaroonikada ay xaaladda kaga saareen oo shaqadii ay hayeen ka joojiyeen 2 xarumood oo dhanka elektaroonikada oo ay isticmaalayeen ciidanka Israa'iil ee Qubrus ku sugan. waana tallaabo kale oo bannaanka soo dhigtay quwadda militari ee dalka Turkiga, maadaama ay wax kama jiraan ka dhigeen tayadii ciidamadii elektaroonikada Israa'iil oo loo arkayay kuwa ugu tayada wanaagsan guud ahaanba 20 dowladood ee badda Mediterranean-ka ku yaala oo ay xitaa Faransiiskuna ka mid noqonayaan. keenitaanka Israa'iil oo masaaxo ahaan ka yartay jasiiradda Qubrus ay agagaarka Turkiga keentay in ka badan 50 diyaaradaha dagaalka iyo 100 ciidamada kumaandoosta oo ay weelinayeen 100 saraakiisha ciidankeeda ee waayo-aragga ahaa iyo 4 gruub oo ciidamada dagaalada elektaroonikada ah ayaa waxaa loo arkayay sidii ay duulaan ku soo qaaday Turkiga oo kale. laakiin guuldarrada ay Israa'iil kala kulantay militariga Turkigu waxa ay ku kalifaysaa inay dib ugu noqoto xisaabaadkeeda, waxaana ay noqon doontaa tallaabo isbedel oo ku timi isu dheelitirkii awoodeed ee gobolka, iyadoo tusaalena u noqonaysa waddamadii reer Yurub ee doonayay inay Israa'iil u kaalmaystaan colaadda Turkiga. sidoo kalena cashar ay ku cibro qaataan ayay u tahay waddamadii Carabeed ee xidhiidhada ula samaysanayay Israa'iil si ay uga difaacdo khatar ay sheegeen inay ku hayaan Iiraan iyo Turkiga, oo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Imaaraadku salaasadii sheegay inay nabadgelyada gobolka khatar ku hayaan wadamo maskaxda ku haya boqortooyooyin iyo imbaraadoriyado taariikh la soo dhaafay ah, sida uu hadalkiisa u dhigay, kuwaasoo la filayo inuu la jeedo boqortooyooyinkii Faris iyo Cusmaaniyiinta.